ma jeceshahay inaad ogaato qofkii baaray Facebook profile-kaaga ama se maba rabtaa inaad ogaato qofka u badan ee la gareeyo boostiyadaada kana comment gareeya haddii jawaabtu haa tahay flow with me si aad ogaato qofkii baaray Facebook profile-kaaga waxaad u baahan tahay inaad soo download gelisato application-ka don't worry about it application-ka waxaan idin soo dhigi doonaa description-ka hoose application-ka markaad soo download gelisato waxaad ku fataa open continue application wuxuu kugu soo baxayaa noocan oo kale yes who viewed your profile waa mid kan u horeeya laakiin waxaad heli kartaa waxyaalo badan who likes the most your best friends top likers top commenters I don't need others kuwa kale adiga ayaa brobayn doona balse aanu ma baahni iminka waxaan kaliya u baahanahay who viewed your profile kaw sare click it yes waa kuwan dadkii fiirshay my Facebook profile saasoo kale ayaad u isticmaalaysaa haddii aad isticmaalayso telefoon haddii aad computer ka isticmaalaysid waxaad gashaa marka Facebook-gaaga markaad Facebook-gaaga gasho meel bannaan ayaad waxaad ku dhufanaysaa right click waxaana tegaysaa view page source ama control u ayaad qabanaysaa markaad view page source ku dhufato waxa kuu soo baxaya really code aad u badan waxa kuu soo baxaya code-kan runtii waxaan uga baahanahay meelo yar oo doonayna inaynu ka soo koobiyeysano wax balse ma heli karayno that's why waxaan u baahanahay inaan samayno searching waxaad qabanaysaa control F markaad control F samayso search button yar baa kuu soo baxaya halka ayaa waxaad ku qoraysaa internet ku qoraysaa initial chat friends list ayaad ku qoraysaa soo koobiyeyso inta halkan control feed ama right click paste markaad inta ku qorto really way inoo soo dhawaanaysaa code-kan raadinayna waa kan waa code-kan weeyaan entire en highlight gareeyay waa hal qof waa qofkii ugu dambeeyay ee eegay Facebook profile-kayga kan kalena waa mid la mid ah isagna marka kuwan oo dhan waa qaar ka mid ah kuwa baaray Facebook profile-kayga marka haddii aan imka ku dhufto qofkii ugu dambeeyay markaad soo highlight gareysay inta yar waxaad ka reebaysaa -2ga iyo bracketada yar baad ka reebaysaa right click ayaad oranaysaa copy ama control C waxaad ku noqonaysaa Facebook-gaaga caadiga halka u sareysay ku qoran tahay facebook.com ayaa waxaad gelinaysaa backslash ta markaad qorto control V ayaad oranaysaa koodka soo qaatay ama right click paste ayaad oranaysaa markaad intaas samayso waxaad tiraahdaa enter really waxa ii soo baxaya marka qofkii baaray Facebook profile-kayga marka qofkii u dambeeyay Facebook profile-kayga baaray waa wiilkan ayaa baaray Facebook profile-kayga asaasoo kale ayaad ku ogaanaysaa qofkii marka baaray Facebook profile-kaaga waxaad ku noqon kartaa halkii waxaad soo koobiyeysan kartaa qof kale runtii meesha doona ayaan ka soo qaadi karaa inka kanoo kale haddii aan koobiyeeyo inay wax kala raacaan waad iska ilaalinaysaa because waa code control C ama right click copy ama control C ayaad oranaysaa waxaad ku soo noqonaysaa Facebook-gaagii inta u dambaysa ayaad ku baas gareynaysaa adoo backslash ta gaarsiinay control V enter ayaad oranaysaa kadib waxa ku soo baxay qofkii baaray Facebook profile-kaaga saasoo kale ayaad ku ogaan karaysaa marka qofkii baaray Facebook profile-kaaga haddii aad ka isticmaalayso computer